إنا لله وإنا إليه راجعون. maanta waa maalinkii xigay qaraxii labaad ee Zoobe ka dhacay. waxaan joognaa goobtii qaraxa uu ka dhacay agagaarka iyo meesha aynu taagannahay iyo dhismayaasha iyo jawiga oo dhan wuxuu ka markhaati furayaa burburka xoogga badan oo ay geysteen khawaarijta manaxayaasha ah oo arxanka aanan lahayn oo islaamnimada ka fog oo insaannimada ka fog waxa ay la maagan yihiin oo ay mararka qaarkoodna fuliyeen welina ay ku taamayaan inay sameeyaan oo ay ula socdaan ummadda Soomaaliyeed. runtii meesha tan waxa ka dhacay wuxuu u eegyahay dhulgariir hantidii ummadda dadkii dhiigoodii wixii lagu soo tabcayay dadkii wax baranayay wasaaraddii waxbarashada dadkii u imaanayo ardayda ahay oo shahaadooyin ka doonayay waalidiintii dadkii ku dukaamaysanaya meesha tan oo ganacsiga ku haystay yacni xoolihii lagu tabcay sida dhibaatada ah oo loo soo maray dariiqa dheer in daqiiqad gudaheed lagu burburiyo oo dad birimageyda ah oo dumar leh oo odayaal leh oo dadaan hubaysnayn leh oo carruur leh la bannaysta dhiigooda oo qarax intaa la eg loo geysto hadday wax muujinaysa waxay ku tusaysaa un keliya caqli xumada iyo caqiide xumada iyo cilmi xumada isugu darsoontay nimanka la yidhahda khawaarijta. shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa waan halkan uga soo jeedinayaa xilli la gagabado iyo xilli la isgaabiyo waa la soo dhaafay. wixii ka dhacay shalay toole meesha tan waxay caddayn u tahay kama dambays ah qofkii shaki uu kaga jiray dadka kanu inay duulaan ku yihiin qof walba oo Soomaali ah naftiisa, inay duulaan ku yihiin jiritaanka, inay duulaan ku yihiin farxadda, inay duulaan ku yihiin dhaqaalaha ummadda, inay duulaan ku yihiin Soomaaliya in lagu sii noolaado. dadka dalka Ilaahay ku beeray subxaanahu wa ta'aala waa innaga, dalka kan dadka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu dhaxalkiisa siiyey waa innaga. nin gar u leh ama koox gar u leh intay isa soo abaabusho u soo tababarato inay nagu kadeedo dalkeenna ma ay jirto. xaq waxaa loo leeyahay markay soo baxaan waxaan oo kale iyo xisaabaadkan mujrimada ah in la isdifaaco oo hubka la qaato oo la iska qabto gooryaankaas ummadda ku dhex jira. ilaahay waxa uu leeyahay udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu, kuwa la dhibaataynaya ee lala diriraya waxaa loo idmay inay dagaal galaan oo isdifaacaan. limaada? waa la dulmiyey. cidda dulmisay lama sheegin waxa ay sheeganayaan ma gaala ma muslimba ma kuwo kaloo kharibanba ma diinlaawayaalba sida kuwanoo kale ay yihiin. marba haddii dulmiga noocaasa uu yimaado xaq waxaad u leedahay inaad difaac aad ka geshid. shabaab dadka waxba uma taraan, markay dhibaataysan yihiin ma caawiyaan, markay abaaraha qabaan uma gurmadaan, markay daadad ku fatahaan ugama maciinaan, bal ee meelaha ay joogaan dadka waa go'doomiyaan, baad bay ka qaadaan, ilmahay ka kaxaystaan iyagoo nool. markaasaa cunugaagii laga yaabaa in loo isticmaalo adiga in dib lagugu soo celiyo oo uu ku dilo. dumarkay kaxaystaan ayagoon idan iyo weli midna aanan weydiisanaynin, meeshay doonaan bay geeyaan. wax ay hambaysteen iyo wax ay reebeen lama arko. waxaasoo idilna waxa ka sii daran waxa ay tahay inay u daliishanahayaan aayado Ilaahay oo ay soo bililiqaysteen iyo axaadiistii nebiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi oo iyagana soo bililiqaysteen oo ay u isticmaaleen meelaysan daliil aanay u ahayn. waxaa la joogaa xilligii kacdoonka uu meel walba gaari lahaa. waxaa la joogaa xilligii kacdoonka laga samayn lahaa magaalada Muqdisho gudaheeda. waxaa la joogaa xilligii meesha qaraxa lagu soo qorshaynayo la soo sheegi lahaa ama meeshiisa lagu fashilin lahaa inta uusan soo gaarin meesha lala maagan yahay in lagu qarxiyo. waayo midka loo wadi iyo midka agtiisa lagu samaynayo ee ka aamusan isku hadaf weeye, isku meel bay u taagan yihiin. dadka Soomaaliyeedna murtadiin bay ugu xukuman yihiin, dhiigoodii iyo xoolahoodii ay bannaan yihiin. marka qof u socda inuu adiga ku dhibaateeyo, qof u socda inuu dhiiggaaga daadiyo, qof u socda inuu ehelkaa burburiyo, macno wax loogu qariya ma jiro. waxaa loo baahan yahay damiirku inuu shaqeeyo, dadnimadu ay shaqayso. dadkii shalay ku dhintay meesha tan qorshahooda ma aanu ahayn inay meeshan qarax kula kulmaan ee qaraxii la waday baa kula kulmay iyaga meesha. saas darteed baanu u jirin qof aamin ah. haddaba hadday sidaa tahay waxaa loo baahan yahay qaraxa ay dhici karto inuu meel kale kugula kulmo inaadan oggolaanin inuu qolo kala aado. laamaha amniga in lala shaqeeyo, dawladda in lala shaqeeyo la garab istaago. dawladdeenna weeye dadku inay dawlad yeeshaanna diin weeye. dawlad la'aanta iyo fawdada oo ay rabaan shabaabna waa diin darra weeye. sidaa darteed dawladdaas in khayrka lagu kaalmeeyo, laga dambeeyo, la adeeco. ilaahay bay quraankiisa nas kaga dhigay yaa ayuha alladina aamanu atiicu allaha wa atiicu rasuula
وأولي الأمر منكم قال نمدح جوجو صومالي بقول كي بقول ومسلم دولة ديدو ومسلم شعب كذا ومسلم سياسيين تيدو ومسلم سراكيش يدو ومسلم أقوياء كذا ومسلم قال لك صور دحقبان مهيو dadka noocaas ee wada muslimiinta abka absoo ahaay u taagnaa ahlu quraanka macna inta loo kala saar la yiraahdo maya qarax waxaan u wadnay wasaaradda Hiblaayo yaa u baneeyay wasaaradda inay weeraraan waa su'aasha xigta haddii wasaaradda u socdeen oo qaraxii hore ay ku dhufteen kii labaad ma wasaaradda u socday oo dadka baabi'iyay oo dadka xasuuqay waxa meesha yaalla waxay tahay cisaabo mujrimo ah maafiya ah khawaarij ah nidaamkii ka baxday ku soo jeedsatay ummadda uguna soo jeedsatay inay dhibaateeyaan waxaan u baahannahay marka kansarkaas inaynu iska jarno oo qofna aanu qarin qofna uusan u nixin qabiil ma laha oo gobol ma laha oo maamul ma laha oo waalid ma laha oo arxan ma laha oo ixsaan ma laha oo qaraabo ma laha waxa nuucaasoo xitaa waalidiintood dilaya macna loo dhowrtay meesha ma yaallo ummadda Soomaaliyeed laba mid baa u taala in qof walba uu qaraxa maalinkiisa meesha ku sugo oo ay masaakiin noqdaan madaxa hoos u roga iyo inay maya yiraahdaan oo nimanku xabadda waa kartaayo gobolada lagala dagaalamayba waa laga soo saaray waana loo guuleystay oo masaajidka cali gudud baa shalay u dambeysay oo laga saaray taa iyadaas ay u qariyaan baa waxay isku dayayaan inay leexiyaan focuska dadka ay leexiyaan marka waxa loo baahan yahay sida goobaha looga saaray caasimadana in looga saaro oo caasimadeenu ay la qeyr noqoto caasimadaha adduunka ee nabadda ah ee markaan meesha tan u adkeysan weyn intaan u cararna bariyahan ku soo nasanno oo meeshan ay noo noqoto meeshii loo soo carari lahay oo dadkii ka qaxay oo ka tegey oo nolosha ka raadiyey iyo nasiinada iyo nabadda meelaha kale ay dib ugu soo laabtaan waxaa lagu heli karaa wadajir midnimo isku tashi iyo in ilaahay xarigiisa la wada qabsado oo aan la kala tegin oo la iskhilaafin wa'tasimu bihablillahi jamiican wala tafarraqu cadowgana cunahayana gacan bira inuu ku qabanno waana qabsoomahayaan ilaahay baana qabanaya waana ugu kaalmaynaya haddii aynu la nimaadno asbaabtii iyo shuruudihii nalagu siinahay hiilka ilaahay waxaan u weydiinaynaa intii dhimatay inuu shahaadadooda u aqbalo inta dhaawacan uu u boogadhayo inta dhibaato ay ka soo gaadhay oo xoolahoodii ay ku baaba'een inuu ciwad khayr qabo uu siiyo waxaa kale oon uga baryaynaa ummaddeenna Soomaaliyeed inuu ilaahay amni iyo istiqraar iyo xasilooni uu siiyo nimankaas shar wadayaashaana rabbi uu qabta qabasho daran wajazaakumullahu khayran